markay dawladdu dhacaysay maalintaas dawladdu dhacaysay maxaad xusuusataa maxaad gacanta ku haysay maxaad qabanaysay shaqadu maxay ahayd waxaa dhacday markaas waan ka imid gobolada xarunta mashruuca fidinta beeraha afgooye ayaa la ii soo bedelay waxaan markaas ahaa maareeyaha farsamada nin hindiya oo expatriate ayaa ila shaqeynaya anigana muxuu ahaa Soomaalida ayaan wakiil u ahaa counterpart technical manager ana afgooye joognay afgooye compound xafiisyadii iyo guryihii iyo wixii yay leedahay waa dadku hadda waa la baabiyay laakiin waagaas waa la yaqiinay la fool agtiisa meel shidan ay alxamdulillaah rabbil caalamiin markaasaan aroos 14 days anoo aroos ku jira maareeyana ah suuqa dul saarantahay muxuu ahaay guryaha marka mashaariicda loo dhiso mareeri oo kale iyo muxuu ahaay la foolo kale iyo guryaha waa type A type B type C shaqaalo si u kala garanayeen anoo guri type A ahaan deganahay maareey aan ahay guri type A aan deganahay waay ayaa xamar dagaalkii ka bilowday aniga waxaan isleeyahay waxaas wax dhib hoy leedahay male waa iska kacdoonkaas u jaa 88 bijaa kacdoonku soo bilaabanaya waa la xalinaya waa la tacaalaya maba ku dhignay aniga ma xasaabtas kuma jiro waay galabtii saddexaad ma aqaan qolo ka soo baxday muxuu ahaay xamar oo hub iyo adduun iyo balaayo iyo baabuur wadataan soo dul degtay markayna soo dul degeen gaari marka waa ku dawladda dadkii dawladdu cararayay ha saas waa saas anaga dhinacaas wali jabhadii ma soo gaarin anaga dhinacaas xignaa moogta waay gaarigii aan watay oo mashruuc iska lahaa oo gaari cusub oo Land Cruiser oo guriga hortiisa ee ku parking garaysan ayaa buuqan aan ku soo baxay waxa lagu dagaalsan yahay gaarigeygii meeshii yiile anaa qaadana lagu dagaalsan yahay waay aniga waa soo baxay wixii kala xaliyaan maxaan kala xali karaa labadii nin oo isku haysatanimaaba la dilay anoo taaganina la dilay waay waan ciidan nimagaas ciidan waay gaariga markii ninkii la dilay oo ninkii yaalo la isku soo baxay oo buuqi tala waa faray ka baxday moogta waay gabadhii aan markaas guursaday bas meeshaan joogid ma lahe intii buuqi lagu jiray gaarigayaan soo galnay albaabkiina waa laga xiran yahay siligii muxuu ahay ku xirnaa ayaa muxuu ahay ninkii yaatiya oo consultant noo ah oo meesha deganaa oo aniga departmentkii ka shaqeynay yaan asna guriga deganaa soo maray ilaa nin ajnabi wala kala carara asagina horaan u soo qaaday siligaan ka soo baxay waxaan xasuustaa يعني markay tala ku qabato waa mashaakil waay يعني noloshii iyo dawladnimadii iyo noloshan ku noolaa iyo rajadii arooskii aan galay 14 bari aroos aan ahay guriga camiran waxa yaalo alaab adduun saasan u fiiriyay maxaan ka qaadi karaa waay waxaan xasuustaa waxaan isiri maxaad ka qaadataa shahaadadaadii ka qaado shahaadada jaamacadda bas ka qaado shahaadadii yaan ka soo qaatay aan isiri waa soo qaatay meelaan geliyay waa dhaqaaqnay waa soconay tuuladii dheer kuuyo barrow Kismaayo agteeda aniga markaas waxaan u socdaa yoontoy oo Kismaayo agteeda yaa xarun kale oo waxa ku taal mashruuc fidintu leeyahay waay marka aniga markaas waxay ugu jirta waxaan waa la xalin doonaa inta maaragtay laga xalinayo yoontoy sii tag shaqaale badan iyo aad ku ogeed meesha waay iyo guryo iyo xafiisyo iyo guryo marti iyo meel tababar iyo ayaduna intaanoo kala ku til waay kuwi barrow markaan sii marayaan waxaan isiriniyo xogaa caadi ah waxaan isiriniyo shahaadadii yeysan ka halaabin oo baabuurka garaasidiisa iyo wixiisa yeysan ka halaabin meel fiican gili waay
kursigaan saan u furay shahaadadii maba ku jirtaba ilaan waxaan soo qaatay oo shahaadadii aan u haysto bahalahan miiska markii la saaro ee suxuunta iyo la dul saaro oo aan soo qaatay caagan yarka khafiifka caaga yarka khafiifka oo mid xoogaa marka waa isagiileen waa isa giileen caaga hor u qaatay xagga hore soo qaatay aad iyo aad painful haye waaga kugu barya marka kuwiyo baro iyo meeqa isku jiraan afgooye adigu almost 400 waa isku jiraan ma adigu 300 meelahaas isku jira 300 waay kismaayo sii dhowdahayba kismaayo kaaga dhow ma kasbay ku dhugantaa waay markan iyo dhibaata ka dhacday muxuu ahay fudeydkaas ay wixii ku bilowdeen hadii wixii ka dambeeyana waa la ogaa aad iyo aad dagaalkii markaan tagnay muxuu ahay yoontoydaas dagaalka dad waa naga daba yimid waa kala firdhanay aniga xaaskii waa kala lunnay muxuu ahay Kenya aan galay aydan Kenya dhinacay ka gashay waa kala cararay sababtoo anoo meel ku maqan oo muxuu ahay beero mashruuc lahaa anoo soo fiirinaya dagaalkii dhacay meeshii la kala cararay oo meeshii aan u soo noqonay yoontoydii oo laga cararay oo dadkii joogay ka carareen aan ku soo noqon dadka cararaya dhinac ka raacday waay ICRC-da ee hay'adda leedahay Lanqayrta Cas xafiis ay leedahay ayaan imid oo Nairobi intaan imidoon taqaana ayaa waxaan iri waxay qabaan barnaamij tracing waay marka waxa la buuxiyaa foomaa la buuxiyaa qofkii u qalma maya qofkii maqan la raadinayo baafinta waay bas waa filmka lagu buuxiyey adigu barnaamijkii waa wada hadalnay beeraha inaan ahay iyo mataqaanaa nin oday meesha joogaan wada hadalnay marka wuxuu yidhi beeraha ka shaqeeyaa waxaan ma nala shaqeysay dad Soomaali oo nala shaqeeyo ma hayno war aniga bas dibkaas ay ugu dhaay xaaskii waa iga maqan yahay waxna mataqaanaa meel ku oogi wuxuu yiri annaga ba shaqadeenu tahay ilaa haday noo shay annaga helayneen nala shaqeey sidaasaan ICRC ka bilowday mashruuca baafinta mashruucaas baafinta xaaskaagana baafinta ku bilowday xaaskaaga ma baafisay waa baafiyaa marsaasa 10 sano aan ICRC aad iyo aad waay